kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidha meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan ku dul istaagi doonaa hadduu rabbi idmo dagaalkii shalay ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ayaa khasaarihii ugu faraha badnaa abid geystay dagaalkan ayaa lagu tilmaamay in dhawaala ama 15 sano ee dalka Soomaaliya guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed uu sageysanin dagaal la mid ah khasaarihii uu geystay meesha 120 ruux ay ku dhimatay 500 oo ruuxna ay ku dhaawacmeen waan isdul taagi doonaa hadduu rabbi idmo xaaladii ugu dambeeyay iyo waliba sida loo kala guuleystay iyo waliba xaaladihii ugu dambeeyay ayaan ku qaada dhigi doonaa dhanka kale magaalada Nairobi waxaa ka dhacay shir ballaaran oo ay qaban qaabiyeen madaxyaweynta mucaaradka Jubbaland kuwaasi oo ugu baaqay madaxweynaha maamulka Jubbaland in uu booska iska casilo ama uu dhaafo waxay tilmaameen inaan loo dul qaadan karin haatan wixii ka dambeeya shirka cid qabatay iyo waxyaabaha ka soo baxay ayaan hadduu ilaahay idmo ku dul istaagi doonaa barnaamijka waxa igala qayb galaya labada saaxiib ee kala agooni iyo waliba mahad colaado indhaha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee shirka iyo waliba magaalada aan idhaahdee Laascaanood hadaba haddaan ku horeyno xaaladii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood iyo saaka waxay ku waabariisatay waxaan ku horeynaynaa saaxiibkay gooni haddaan ku horeyno bal marka hore xaaladu saaka iyo waliba maanta maxay wax marayaan horta fargodow maanta waxa way sidoo hore ma ahayn jawiga xogaa uu yara degan yahay rasaas talteel ayaa dhacayso waxaana la kala guranayaa dhaawacyada iyo meedadkii taasoo la sheegay ilaa xalay ilaa maanta in la kala gurayo dhaawacyada ugu badnaa oo 500 kor u dhaafaya ayaa ka dhacay dagaalka shalay waxa kale oo jirto in 110 ilaa 120 inta u dhaxaysa ay ku dhinteen dagaalka shalay waa dagaalka ugu qasaaraha badnaa ee ka dhaco deegaanada SSC muddooyinka la soo dhaafay fargodow intii bil iyo barka ahayd oo dagaalku socday waa kii ugu cuslaa ee dadkii ugu badnaan ay ku dhamaadeen marka waxa malaysaa fargodow in magaalada banaankeeda la isku helay geedana aysan jirin maxaa la yiraahdaa darbiye iyo dhagxaan lagu gambadan aysan jirin oo rasaastiisi dadku si caadi isku dhameeyeen marka waa dagaalkii ugu qasaaraha badnaa la dhihi karaa in baawur waa la kala qabsaday waxa la kala qabsaday gaadiid dagaal waxa la kala qabsaday hub aad u fara badan marka wixii dhan natiijo la'aan waay sababtoo dad ayaa la laayay oo kaliya gooja cadana lama qabsanin Laascaanood lama qabsanin dagaalka labada dhinac waa is ag fadhiya gooriyow khasaaraha waxaa la tilmaamayaa ilaa iyo 120 ilaa 110 ruux inay ku dhimatay labada dhinac isku darkoodaba saraakiil ba ku dhimatay dhaawacuna waxaa la tilmaamayaa ilaa iyo 500 ruux inay kor u dhaafayaan maxay u muuqataa marka arrintan wallahi arrintan arrin rajale ma ahayn dagaalkani inuu mid si daba dheeraado waaye wafdi ay dowladda federaalka Soomaaliya u dirtay ay wuxuu gaaray in magaalada Garowe kuwaas oo ku gali doona xaaladda magaalada Laascaanood lagana yaabo inay wada hadal ama go'aan ka soo saaraan kadib markii dhawaato aad weyn halkaas ka dhacday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud oo shalay hadlana wuxuu sheegay in dagaalkan uu aad u quseeyo dad Soomaali dhiigooda la daadinay ay dhibayso dowladda federaalka Soomaaliya markaan kadib aysan indhaha ka fiirsan doonin iyadoo looga baahan yahay inay waxtar muuqdo ay la imaado dowladda marka madaxweynaha Xasan Maxamuud waa safray laakiin wuxuu sheegay in dagaalkaas aad ugu xun yahay in dalka Uganda ayuu ciidamo ugu tababar ugu soo xiray waxa laga yaabaa inuu ku soo laabto magaalada Muqdisho kadibna go'aan intaan ka sii balaaran ama waxa la yiraahdo wafdi kale oo labaad inuu u diro magaalada Laascaanood hadda Garowe ay ku sugan yihiin waxayna ku sii wajahayeen leeyahay magaalada Laascaanood wafdigaasi waxa laga yaabaa inay go'aan rasmi ah ka soo saaraan maanta dagaalo ma jiraan oo dagaalkii waxa waaye xaalad halis ayaa lagu jiraa maadaama 500 oo dhaawac la kala geeyay meelo kala duwan Garowe Burco iyo Hargeysa iyo maxaa la yiraahdaa Laascaanood inay kala jeefaan dhaawacyada la sheegaya meedadkana la aasayo marka fargodo waxa la karaa dhibaato aad u weyn waaye wax rajo iyo wax waanwaan ah halkaas ka socotana ma jiraan aad iyo aad baad u mahadsan tahay mahad colaado shalay indhaha ayaad ku haysay dagaalka sidii loo kala guuleystay maamulka Soomaaliland waxay soo bandhigeen ilaa iyo 12 maxaabiisa oo dagaalka ku jirtay dhanka kale maxaan ku dhaxooga geysay ayaguna waxay qabsadeen baabuur fara badan oo ilaa iyo 5 lagu sheegay tiradooda iyo waliba maxaabiis maxay kula muuqataa marka horta wararku waxay sheegayaan in shalay dagaalku aad iyo aad u xumaa la isku baaba'ay jilbaha la isku aastay ninba uu dhahay ka carari mahaya hayga cararin shalay dagaalkaas dagaal khasaare badan dhaliyay buu ahaa dhaawacyadu way tira beeleen dhimashaduna ayadana xad dhaaf bay noqotay nin walbana wuxuu sheegay in uu qabsaday dad maxaabiisa iyo hub uu qabsaday nin walba dhinaciisa dad buu soo qabto banaanka uu soo dhigo yiri anna kuwanan haya gaadiid nin kasta wuxuu dhahay anna kuwanan haystaa marka waxa da faa'iido oo labadooda ay kala gaadheen ama guul faa'iido ma dhihi karnaa laakiin wax guul oo ay kala gaadheen horta labada dhinac ma jirto waxaad arkaysay
maamulka ee Somaliland in ay dhaheen rag saraakiil ah oo ciidamada kamid ah ciidamada ee Puntland in ay soo bandhigeen oo laba nin baan aragnay sawirkooda oo ay kaga hadlisiyeen waxay kaloo ay sheegeen rag kale in gaari kale lagu qaado rag kale oo indha xidhan bayadana soo bandhigeen wararkuna waxay sheegayaan maxaabiista labada nin ee laga hadalsiiyay mooyeene maxaabiista kale ay qabteen in ay laayeen taas waxaan dhihi karnaa waa arrin ceeb ah qaabka dagaalka iyo bini'aadamnimadana way ka fog tahay in maxaabiis aad qabato adiga gacanta ku gashay in aad layso ood haysataba inaad horta taas waa ceeb adduunka dhan ma qabo wax islaamnimo oo kale oo qabtana ma jirto marba ninka haddaad ka adkaatay oo kuusoo gacangalood qabatay in aad disho waa xaaraan hadda SSC waxay sheegeen dhowr iyo 20 nin oo maxaabiisa oo saraakiil ciidan oo sarsare oo uu kamid yahay taliyihii qaybtii 8aad uu kamid yahay in ay hayaan oo dhaawac iyo iskugu jira rag fayowba ka waran haddii tiriibka horena waxa lagu eedeynayay wiilal saas kale ay u qabteen inay laayeen marka ayaga haddii ay dadka ay qabtaan oo maxaabiista ay laayaan waxa imaanaysa nin kasta maxaabiista marka uu qabto in uu laayo oo la kala aana goosto oo nin walba uu ninka kale ku daydo marka waxaan dhihi lahaa ciidanku rag waa istagaala waana kala adkaada hadba ciidanku sidiisaba ninka markii la qabanayo laba maada lagu qaban kara inuu ninka ciidankiisi oo jabay oo asagana xogow uu jilibka yar dhaw isir adkayo nin geesi oo dagaalamay ka bacdina ciidanka dagaalamayeen uu ka farabato uu hareeriyay iyo in asagoo dhaawaco meesha laga cararay loogu imaado midun bay noqonaysaa marka ciidanku asagoo dagaalamayo oo ciidankaadi laga yaabo dagaal biyo laga yaabo in qayb gaaf lagu hareerayo oo ciidan yar goonyaha la gashado oo ciidanka meel ay ka baxan ay waayeen oo kadib loo la dhaho ama waan in leyn ama isdhiibo gacanta ay taagan dagaalka adduunka dhan ka dhaca oo ciidanka halka uu isku dhiibo markaasna waxa weey waa tactic dagaal ninka waxa leeyahay meel wuxuu galay oo abuuyo dhax galay suu oga baxana male marka inuu isdhiibo ninka nafta ku khasbaysa marka waligeedba maxaabiista rag markuu dagaalo waa la kala qabtaa waana gamcahana waxay u kala galaan labada kooxood ee sagalay maxaabiis way kala qabsan laakiin waxa xun in dad la qabtay intii la qabto la dhaho waan tooganina adii shalay markaa toogatay saraakiil iyo rag madaxa iyo rag ciidana ya laga haya rag ba laga haya ragga adilayso markii nin walba aabihii la qabto ama walaalkii la qabto dadkii dhalay ee familka ah shacabka beerka ulali wuxuu leeyahay walaalka ma lagu soo dayn doona ma la dili doona nin baa caruurtiisa hadda maanta ooyahay oo le shalay dhahay caruurtayda ku korsan ciidanka saasan u soo raaca taliyaha inkastoo hadee uu taliyaha uu ahaa laakiin arrintan inuu dhaaba laga fiicna calaacal iska tahay taas oo la rabay inuu iska adkaysto laakiin shalay wuxuu yahay caruurtayda waxaan u soo raaca caruurtaydan bilyan meeshan ka qaadanayo u siinay biil ma ahayn nin taliyo ciidan oo dawlad ku jiro oo maamul ku jiro ka soo jeedo ahaa marka ilmihiisa markay fiidiyo u arkaan uurkooda waxa geli aabihiin ma leeyni soo deyn doona maxaabiis miyaa dhow la isdhaafsan doona oo inay imaan doona oo dimdaba ma oo la midoobisan qalbigooda waxa sagalay laakiin se haddii kooxdii kale ay disho hadii nin walba markaas asagoo aabihi nool buu samraya oo ogaali markii kuwan ay laayeen kuwooda la dili doono waxaa jirta muuqaal maamulka Somaliland ciidamada ay qabteen waliba beelihii ka yimid harti ay ka yimid dhanka iyo Puntland waxa la tilmaamaya ilaa iyo 12 kamida ayaa waxa la arkay iyagu ku haya hadil muuqaal ah hadil oo lintu qori oo la soo baxay uu maarт ku haliilayo marka arintaas inay laayeen wayba laayeenba hay shalay afhayaanka guddiga SSC ee 33da uu hadlay wuxuu dhahay maxaabiistan marka ay qabteen way laayeen only kaliya waxa ka jooga labada nin ee laga hadalsay ninka dheer fanaanada cad qaba iyo ninka yar dhalinyarada ee dhihaya anigu heel walaal baan ku imaaday rag waa kala adkaaya ninka hadlay ee sida fiican u hadlay ninkaas iyo ninka kale ba ka jooga la sheekay kara wixii kale way laqeen hadii aan laynin intay soo daayaan bay kaga hadalseen la sida kuwa kale meel fadhiisin lahayd laakiin nimanka markii ugu horeeyay sawir bay ka wada qadan kadibna nimanka waxa la sheegay inay nimanka ay cuneen oo ay laayeen marka arrintaas waan cambaaraynaa hadii aan shacabka Soomaaliyeed aad baan u cambaaraynaa waxaan dhihi karnaa waa ceeb in maxaabiis oo aad qabatay oo dagaal aad ku qabato istagaaliseen in marka gacanta ku galay in aad layso wuxuu dad Soomaaliyeed way waxaan ku dhamaan doona wala la midoobi doona qarabi ehel baa leeyahay laakiin xilliga ayaga xineen taabad ba taagan ninka hadii aad istagaashaan waxa dili karta xilliga xabada ku dil iyo waxaad meesha qabsanta qabso laakiin marba haduu ku gacan galo oo xilliga gacantaada ku jiro inaad disho qaanuunka kuma jiro marka waxaan dhihi lahaa waa ceeb biyay lugaha la galan ma dhigaa maamulka Soomaaliland waxaa jirta in la tilmaamayo dagaalka intuu bilaabmay in saraakiisha ugu faraha badnaa ay kaga dhinteen maamulka Somaliland ilaa 16 sargaal baa kaga dhimatay shalay ugu dambeysay ilaa 4 sargaal baa ku dhimatay maxay u muuqataa dhimashada faraha badan ee saraakiisha
كل سراكيشة I don't know ma garanayo waxa laga yaabaa un tababar xumi inay haysato oo qaabka tababarka in uun cilad ka jirto waxaan ognahay ninka saraakiisha dagaalku markii lagu jiro saraakiil ku xigeenyadii iyo taliyaasha iyo raggaas qaybta hore ragga dagaal gelinaya ragga saraakiisha waaweyna dagaalka qaybta dambu batatan buu jooga halkaas dagaalka ayuu ka jangooya oo dadku halkaas dagaalka direction yu bixiya iyo qaabka dagaalka iyo si uu u galay qaybaha laga galay waxaas oo dhan uu bixinaya laakiin saraakiisha qaybta ugu horeysa waxa soo mariyay ee lagu tooganayo taas la garan waayo hadda Soomaaliland waxay marisaa intii inaga aan ognahay 16 iyo waliba ka sii badan bal sheegaya saraakiil oo rag sarsaro madax oo taliyaha qaybta ugu sareysa 16aad 12aad tobnaad qaybta howlgelinta 16aad wax un baa la kala daldalhaya oo kulli la laayay oo midadkoodii garaadahooda banaanka loo soo wada daadanaya oo uu shalay kamid ahaa ninkii sargaalka asaga wiilkiisa isku meesha ku dhinteen marka waxaan isdhihi karnaa un kulley nimanka ayaga hadda dagaalka qaybta hore safka hore soo galeen xabadayna ridayeen xabadaas ugu dhacday laakiin haday gadaal dambe ay jiri lahaayeen oo ciidanka halkaas ay ka howlgelin lahaayeen xabadu kuma dhacay laakiin safka hore ragga soo galeen aad iyo aad baad mahadsan tahay gooryow ninkii mahadaha wuxuu sheegay xogo fara badan oo ku daahan dagaalkii shalay ka dhacay deegaanadaasi ma isleedahay adigu maxaabiista qolada maamulka Soomaaliland way laayeen labadii nin miduu lahaa rag waa kala adkaan jiray mooyaane intii kale way cuneen baa la leeyahay horta farqadu maxaabiistaas in la laayay wax 100% oo hadda cadeen oo lahay malaha laakiin Faisal Falaalug oo ah afayeenka golaha guurtida SSC ayaa sheegay laakiin xogta way kala heli karaan way kala heli karaan laakiin macna asaga sheegay marka in maxaabiista la laayeen way dhici kartaa inaan la laayeen way dhici kartaa laakiin hadii la laayay waa wax dhaqan xumo wax wanaagsan ma aha marka Puntland ay aad weyn u jeediyeen nimanka la yiraahdo Somaliland waxayna sheegeen in saldhigyada ay ku leeyihiin Puntland inay weerari doonaan dhawaan hadii aysan ka waantoobin shaqeynta ay la shaqeynayaan nimanka la yiraahdo SSC dagaalkooda ayaan ku qabanay saraakiishooda ayaan haynaa ciidamadooda ayaan haynaa waa inay ka baxaan dagaalka la sacanad ay dheen digniinta ugu dambeysana waan u direynaa marka waxaa malaysaa meesha in rajadu ay sii xumaanayso dagaalkii la isku hanjabay dadkii la leenayo oo dhibaatadii sii badatay laakiin wax natiijana la helin Soomaaliland doorkeeda ay rabtay ayna gaarin nimanka la SSC-na meesha ay rabeen aysan gaarin laakiin dadka shacabka ee Soomaaliyeed la dhameeyay oo kaliya iyo askartii labada dhinac in la dhameeyo malaysaa midda kale saraakiishan dhimanayso horta xabadu sargaal ma taqaan xabadu waa xabad way qofka aragtay ku dhacaysa meeshana deegaanka Gooja Cad la yiraahdo la sacanad magaalada markii la iskala baxo waa dhul banaan buuro iyo banaan waa kaliya xabadii la tuuro qof iidan ku dhicin meel kuma dhacayso waa dhamaantood xabada dadka ku dhacay waa sababta 500 u dhaawacantay 120 kana u dhimatay marka saraakiishu dagaalka hogaaminayeen way ku jiraan waxa la dhihi karaa halka nin oo dagaalka ka maqan waa Nuux Taani waa asagoo meel dhowr iyo 10 kilomitir jirto ayuu ku sugan yahay halkaas oo dagaalka haga sida la sheegay laakiin saraakiisha yaryarta oo taliyaasha guud 10aad 11aad 9aad 6aad 7aad hogaaminay raggaas oo dhan dagaalka safka hore ay ku jiraan saas ayna rag u dhimanayaan marka nin la amro oo leeyahay dagaalka gal howlgali ciidamada leeyahay ninkaasna ma ka soo teegi karo meesha laakiin taliyaha guud asaga ay wax howlgelinaya laakiin kor u ka hagaya oo telefoon iyo qalabkan halago telefoonada la yiraahdo baaladan la isku ciidamada isticmaalaan waxaas oo ku hagaya marka meeshan wax raja iyo wax wanaaga iyo wax wada hadal iyo wax isku soo dhawaasha oo ka soo socdo malaha ma isleedahay dagaalkan waa lagu kala adkaan doonaa dagaalkan dagaal lagu kala adkaanayo ma aha hadii lagu kala adkaan karo bil iyo 15 bir ma socdeen hadii dagaalka lagu kala bixi karo qolana ay natiijo gaarayso inta Soomaaliland la isla ma qaateen Soomaaliland ma awoodo inay SSC meesha ka saarto SSC-na ma awoodo inay meesha Soomaaliland ka saarto ma horeyso in la wada hadlo oo wax la isku waafaqo hadii aan marka waxa kale oo la sheegaya in nimanka la Soomaaliland go'doon ay ku jiraan oo jidadkii faraha badnaa ee macnaha saanada military iyo hubka iyo ugu imaanayeen iyo maxaa la gaadiidka iyo ciidamada ugu imaanayeen iyo raashinka in la xiraba oo nimanka SSC meel kale ay xireen oo niman rag duurgal inta loo diray jidad fara badan oo dhanka Soomaaliland ka imaanay in la xiray oo gurmad u imaan kara oo san jireen sadii gurmadka lacag u yimaado waa inay dagaal galaan ayaguna oo dagaal ma ahna si kale kuma soo gali karaan wadooyinka laga xiray laba wado waaweyn oo muhiim ah laga xiray ciidamada SSC ay xireen marka in wax amaleysaa ciidanka Soomaaliland in go'doon meesha ku yihiin ma ogeey sida wax lagu keeni doono iyo sida wax xal noqon doono marka waxaan ka rajeynaynaa in xabada intaan lagu joojiyo horeyna ugu baaqnay dagaalka hal qawoojiyo hana la joojiyo andheena fargodow intaan ka badan lama wadi kareen aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan rabaa gooniyow inaan u gudubno mahadiyo iyo waliba gooniyow qodobka labaad ee ah shir shalay ka dhacay magaalada Nairobi oo looga soo horjeedo maamulka Jubbaland
ayaa waxaa lagu cambaariyay madaxweynaha waxayna ugu baaqeen inuu meesha ka tago marka rag jilib culus ayaa isugu yimid goonayo shirkaasi maxay kugu muuqataa walahi horta axmedoobe godkiisa biyo ugu soo galeen sheekh shakuul nin la yiraahdo oo caan ka ah Nairobi nin la yiraahdo cabdi cali raagi oo asagana ragga farmaajo la soo shaqeyn jira nabadii nolol waxa kale oo ku jira meesha shirka ka qayb galay ninka cilmooga xirsi oo ahaan jira wasiirka warfaafinta Cabdullaahi ninka la yiraahdo Omar oo asagana ahaan jiray wasiirka gaadiidka dowladda hawada dowladda farmaajo oo xukuumadda xasan cali khayr ka tirsanaa rag fara badan oo siyaasiyiin ah ayaa meesha isugu tagay oo jilib culus tasaa u taqaanin marka waxaa leeyahay hadda ugu dambeyntii axmedow waxay ugu baaqeen inuu meesha tago sheekh shakuul oo mikrofoonka qabsada wuxuu sheegay 12 sano axmedow uu maraysaa 12 sano kadib Soomaalida kuma adkeysan karto waana iskaga wareegtaa meesha saaxiibkay axmedow waxaan u sheegayaa inuu meesha isaga tago 12 sano ku dul qaadanay waqtigan kadibna waqtiga meesha xafiiska aad wareejin lahayd ayaa la joogaa haddii aad ka tagina doorasho aad ka madax banaan inta la qabto ama madaxweyne lagu keeni doona leer meesha marka xaaladdu meel halis ay gaartay axmedow waxa u malaysaa in qayb qoyskiisa hoose ay ku kaceen oo adkaysan lahayn 12 sano meesha iska fadhiyo iskana soo taagay marka waxa la dhihi karaa fargodow in arintaas halis ay keenaysaa axmedow rabo in meesha iska joogo 12 sano kale inuu joogo rabo waxaa jirtay in hadda ka hor axmed madoobe uu xiriir fiican la lahaa dowladda dalka Kenya oo wax shirara oo maamulka Jubbaland ka dhanana aan lagu qaban karin magaalada Nairobi arintaas oo uma muuqato in madaxweyne Axmed Maxamed Islaan iyo maamulka Jubbaland in aan iraahdo dalka Kenya inay kala xarig furteen soo muuqato maadaama shirar ka dhana Jubbaland lagu qabanayo oo maamulkii meesha marka hore joogo ka baxay ruuta imaaday uhuru meesha joogay uhuruna saaxiib ayuu la ahay axmedoobe marka maadaama maamulkii meesha oo ka baxay oo hadda madaxweyne cusub William Ruto oo meesha yimid waxay u agtahay in William Ruto saaxiib toos u leeyahay ninka Xashin Maxamuud teeda kale waxa la sheegayaa in Xashin Maxamuud inuu diyaariyay Xamse Cabdi Barre inuu noqdo madaxweynaha Jubbaland nin kale oo asagana isla beesha ogaadeen ah in laga dhigi doono oo waliba beesha Coliyahan ka soo jeedo in laga dhigi doono rasaaraha maxaa la yiraahdaa ishaaq Soomaaliya marka qorshahaas socdo waxa kale la sheegayaa in ninkii lafta gare lagu bedel lahaa Muqdisho oo joogo kii lagu bedel lahaa Galmudug inuu Muqdisho joogo kii lagu bedel lahaa Dani inuu Muqdisho joogo dhamaan maamul goboleedyada rag lagu bedel lahaa Muqdisho wada joogaan Xamse Barre asagana Jubbaland laga dhigi doono marka waxa u malaysaa howl weyn ah socoto howshaas weyn waxa wax ka og Imaaraadka Kenya dowladda Soomaaliya iyo Djibouti arintaas iyo qorshaas waa la dagay nin walba ninka lagu bedel lahaa Muqdisho jooga Xashin Maxamed ayuu la joogaa marka Xashin Maxamed bariyahan wuxuu maamul goboleed ugu dhex wareegay shirweyne qarna Jubbaland lagu qabanaa loo dhahayo waxaa la rabaa in Jubbaland la mideeyo madaxweynaha ninka la yiraahdo Axmedoobe meesha laga saaro saas ay qorshaas ayaa socoto in Bu'aala la qabto in gobolka Gedo dhan la qabto ciidamada hadda lagu tababarayo teeda kale waxaa jiro fargood oo qarax aad weyn saakay bar dheer ka dhacay taasoo nimanka shabaab ku soo weerareen ciidamo aad lagu tababarayo halkaasi oo la dagaalanka al-shabaab loogu talagalay aydan arintaasna waa nagu soo korortay oo qaraxaasi waxa la sheegay in 5 nin oo tababarayaal iyo ciidan ay ku dhinteen ciidamada Itoobiyaana meesha ku sugnaan ay u soo gurmadeen fargood aad baan mahadsan tahay mahad colaad hadda dib kugu soo noqdo shirkani muxuu ka dhigan yahay shirkan horta waxa weeye waa niman hadda madax ah oo dawladana u soo shaqeeyay meel fara badan ka soo shaqeeyay oo caan oo la yaqaan horta wax shirka qabtay Axmed Madoobena hadii hadal mar hore lagu qoosto hadal waxba kaba qabanayo waad ogtahay dhowr iyo 10 sano meesha fadhiya magaalada Kismaayana ma dhaafi karo Janna Cabdalla Shalay wiilasha ligeeyeen ka dawad waa la waa la xasuuq waxa la wixii hub uu tabcay 12 ka sanana waa laga qaatay shabaab ka qaatay ilaa kontameeye technica iyo gaariyaasha xamuulkaha iyo booyadihii iyo cagafyo iyo noocyada gaariyaal yar oo ciidamadu ay wateen kulli wax dhanba risaasti intaas soo gaari oo iyo dhiya ka buuxday oo loogu talagalay in sanadiya lagu dagaalamo wixii dhanba shabaab qaatay 100 ciidanan halkii bay ku dileen dhaawacuna uu ka sii tirabeelay marka Axmed Madoobe nin meel u socdo maaho maadaama hadda dalna ma hayo dadna ma u hayo dadkii wuu dhameeyay dalkiina shabaab haysta mar hore la dhahay meeshan dhaafa oo dhulka xore aan dagaalano laakiin se sibuu maxaan ku dhahaa isku meermeerinaya wuxuuna diidan yahay hadda gobolka Jubbada Dhexe in la qabtana wuu diidan yahay asagoo ka baqahaya inay talada isaga farihiisa ay ka baxdo hadda sad oo la socoto magaalada Afmadow iyo Dhobley aan waxba isku jiran lama kala socon karo Afmadow iyo Kismaayo lama kala socon karo dadku dhinaca kore maraan dhulka wixii maraq waxa la kacaya qarax waa lagu guban oo waa lagu dhamaanaya marka waxaan isdhihi karnaa
axmed madoobe xaggan iyo xagga midna ooma socdo dadkana wuu baabiyey markaa nimankan ka hor imaadee hadda le maxaan ku dhahaa mucaarad baan kuna tegaya hadda ka hor kuwa mucaarado kuwiina xowl lagu siiyo way isku dhiibeen waxaa kamid ahaa ninkii la dhihi jiray seeraar ba kamid ahaa iyo ninkii kale asagana la dhihi jiray xidig ba kamid ahaa ragaas yaa u cadcada wixii oo dhan iswada dhiibe asagii hadda lugaha u dhaqahaya marka kuwana sidoo kale inay noqdaan baa laga yaabaa marka axmedow waxaan dhihi karnaa waa in ay dowladda Soomaaliya hadii jadwal fiican la imaato oo hadda dhinacan baar dheer dagaal lagaga soo qaado shabaabka oo baar dheer laga soo ciido saako la qabsado iyo Salagle iyo Bu'aala la qabsado oo xarunta gobolka madax dowladda Puntland maamul goboleedka xanwada Jubbaland waa xaruntiisa weyn magaalada madaxda waa Bu'aala hadii ay qabsadaan oo ereedaba ay ku dhistaan dowlad ay ku dhistaan axmed saas uu ku fashilmayba marka jadwalka waxa laga rabaa in ay keento dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ereyga kale asagana aad weydiinaysay gooni aad haysay dowladda Kenya inay kala furteen Jubbaland soo lagama yaabo marka hore hadii dowladda Kenya waxa isku kaxsana dowladda Soomaaliya farmaajan meesha la arkaynin axmed madoobana wuxuu difaaca dowladda Kenya difaac waxa oo asaga Kenya isku xidhna maadaama farmaajo uu tagay dowladdan hadda jirtay iyo ay heshiiyeen dowladda Kenya ay heshiiyeen axmed madoobe saas marka asagu liiskiisa ku baaba'ayba marka hore labada dowlad col ah ma ogtahay hadda laakiin labada dowlad heshiiyay marka axmed madoobe dadka waxaan leenahay wax uu haya male ciidamadiina wuu dhameeyay dhulkiina shabaabba wada haysta maamul gobolkii saddexdii gobol waxba lagama hayaba kadana way maqan tahay oo iyadana gooni uga soo qaylisa oo mucaaradka jubbada dhaxana way maqan tahay jubbada hoose kaliya unba joogtun marka wax meesha uu ku hayo ma jiro odaygaas marka waxaan leenahay dadka adeer u dhaaf intaad cuni karto wal cuntay wixii hadda bangiga kugu jiray waxaad dhici kartana qaado urso tag marka meelaha ku cibaadeysan leena aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen mahad colaad iyo weliba gooni oo inta badan ka faaloonayay xaaladihii ugu dambeeyay daawadayaal barnaamijkeenina inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan dib dambe u kulmi doono mid kalmid lamid ah waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo